kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada maxaabiistaas ay aragtaan dhaawacyada qaba waxaa lagu qabtay dagaalka ka socda Lughaye ee gobolka Awdal dagaalkii u dhaxeeyay Ciise iyo Gudabiirsi oo cirkaas ku shareeray khasaare kala duwan oo la soo warinayo iyo waxaanu idin soo gudbin doonaa guud ahaan xaqiiqooyinka ku saabsan dagaalkan labada beelood u dhaxeeya ee muddada dheer socda haddaba maxaa keenay in colaadan ay mar kale soo laba kaclayso dagaalkan maalintii labaad galay ee sida xooggan uga socda Lughaye maxaa khasaare ah oo ka dhashay intaanu ku guda jirno barnaamijkan ayaad faahfaahinta kaga bogan doontaan haddii ay tahay markii koowaad ee soo booqatay soo dhawow muuqaalka like garee sina share garee raggan aad aragteen muuqaalada aan ku bilownay barnaamijkeena waa niman dhaawacyo qaba oo ka mid ahaa jabhadda beesha Ciise waxayna ku dhaawacmeen dagaal toos ah oo maalintii labaad oo xiriir ah ka socdo deegaanka lagu magacaabo Osoli oo ka tirsan degmada Lughaye dagaalkan waxa u dhaxeeya Gudabiirsi iyo sidoo kale ciidamada beesha Ciise labada dhinacba xasaas noocyada kala duwan ay soo adeegsadeen waxba la isuma reeban shalay iyo maanta laakiin arinta la yaab kale waxay tahay in ciidamadii Somaliland ee militariga ahaa ee halkaas loo geeyay in dhinacyada ay kala dhex galaan oo waan iyo nabad ay ka shaqeeyaan inay ku fashilmeen inay xabad joojin rasmi ah dhinacyada ay dhex dhigaan waana sababta hadda keentay in mar kale colaad ay ka soo cusboonaato gobolada Awdal iyo sidoo kale Salal haddaan u soo laabto dagaalkan shalay ayuu bilaabmay subaxii xalay maghribkii gabalka ayaa markaas isugu dhacay dhinacyada gurmadyo ay heleen sidaan warbixinteennii hore ku xusnay gurmadyadii ay heleen waxay keentay in saaka mar kale colaadii haddana ay barteedii ka bilaabato shalay dhimasho ayaa jirtay dhaawac oo labada dhinaca iyo dhimasho labada dhinacba waa jirtay maanta laakiin arrintu waxaa dheer maxaabiis nool oo laakiin dhaawacyo qaba inay gacanta ku soo dhigeen jabhadda beesha Samaroon oo sida muuqaalka bilowga aan ku tusnayba ka muuqanayso dagaalkan waji cusub ayuu yeeshay dad badan waxay ku eedeynayaan dagaalkan inay ka dambeeyaan dawladaha shisheeye inkastoo cadeymo aan loo hayn haddana waxaa muuqata in meeshan faragelin shisheeye ay jirto maadaama dad shacaba oo walaalo ah oo muddo dheer wada degnaa in colaad intaa leeg isu qaadaan oo sida dad dhimashadaba xiise u qaba iyo dagaalka maalin kasta colaad ujoog ay noqdaan runtii wax laga xumaado militariga Somaliland waa ku fashilmeen inay colaadaas iyo dhiiggaas daadanaya ay joojiyaan dhinacyadana waxaad moodaa in colaada ay u durbaan tumanayaan xaalad kacsan ayaa ka taagan degmada Lughaye beesha Ciise oo dagaalkii saaka oo muuqato in lagu jibiyay oo dhaawacyo lagaga qabtay iyo dad nool oo maxaabiisa ayaa hadda waxa la sheegayaa in gurmad xoogan uu soo gaaray isla markaana ay isku diyaarinayaan in dagaalka ay meeshooda ka sii wadaan wixii warar ay ku soo korno dagaalkan ka soo cusboonaaday gobolka Awdal warbixinadeena xiga ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal